sheekh xuseen qallaf wuxuu leeyahay wadamaha reer galbeedka qaybo ka mida waxaa ka jira dadka danyarta ah iyo dawladdu waxay ka kadhaysaa guryo iyadu ay leedahay dawladda hoose iyo dawladda deegaanka iyo waxay dawladda noqotay ayaa ka kadhaysa marka 20 sano ama 10 sano guriga deganaatood kala bixinayso waaga dambe dawladdu waxay kugu danaynaysaa inay ku tiraado guriga iibso qiimo jaban oo suuqa aan ka jirin ha laga siiyo maadaama 10 sano aad kala bixinaysay in badanna guriga aad deganayd gurigii matalan suuqa ka joogay 200,000 oo pound ama 100,000 oo pound iyo dawladdu waxay leedahay waxaad ka siinaynaa 50,000 70,000 80,000 adigii ma heli karid hantidaas oo 30 sano kale aad soo bixinayso waa rafaadsanayd bangi baad u tagi oo leedahay hantida intaasa ee dawladdu iga rabto iga shub gurigaasaan ula soo wareeg kadib dawlad ee bangi wuxuu ka shubahayaa 50,000 ee guriga aad ku iibsan lahayd markaad la soo wareegto bangigii wuxuu ka qaadanayaa kirada gurigaas lagu kireeyay qiimo ahaan ayuu intu lacagtiisa ay jirtaba ka qaadanaya bil walbana inaad wax ku darto ama sanad wax ku darto kirada guriga iyo waxaad raacin kartaa raacin ilaa ay bangiga lacagtiisa ka dhamaanaysana guriga adigu deynta aan baadwada iyo qaalash bixinta waaga dambana adu kugu soo wareegaya sidaas aan u qartay su'aashanayta kontonka kun oo gurigu joogay bangigu wuxuu ka shubayaa 50,000 wuxuuna ku saaranayaa matalan 20,000 xaraan cad weeyo geed loogu soo gaban laana waa riba duyuun cad weey taasi in la isweydiiyo oo manhaj lagu soo celiyo maba ahaba maxay yeelay kitaabul buyuc bilowgiisaan ku soo mar ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo wuxuu ku deeyay waa maxay 50,000 buu ku deymiyay oo uu ka shubay oo bangigu u shubay wuxuuna kugu qortay 70,000 20 kan dheeraadka maxay tahay waa qardi jarra manfa'a fa huwa riban laakiin sheekh magaca baaduwan macnaha way ka duwan tahay bangiga magaca bay soo dhaheeyeen isaga iibsaday bay ka dhigan tahay kaas waa kan kiradii ka qaadanaya lacagtiisa dawladda ku bixinaysa asagu ma iibsanin adiga waxaan ka codsaday xaqiiqada weliga markaad marayso uquuda xiyalka iyo suwarka beenta waa la iska ilaaliya misaa'ilka xaqiiqada loo soo dagaa meeshan xaqiiqada waxa weeye waxaan ku amaahiyay 50,000 baan adiga ku amaahiyay waxaana ku saartay 20,000 baan ku saartay xaqiiqadu waa intaas kadib bangigu siyar buu kaaga qaadanayaa lacagti uu ku saarto dhan ee ahayd 50 uu ku deymiyay iyo 20 dul saarta ahaydba uu ka qaadanaya hal mar bay banaantay kaliya taasoo mas'alo u dhaw maxay hadii ninka guriga 20 sano kadib ka bixinay dawladuna ay tiri qiimo jaban baan kugu siinaynaa intuu bangi u tago uu yiraahdo arun waa iska guuray guriga ma barababa bangiyo xaqiiqo waan ka tanaadin ku iibsada waxana isiiyo Afrika baan u socdaa oo 50,000 uu bangigu u shubo dawladda 20,000 ama 30,000 oo bokod mani aan lagu siiyo qardha ka dagto marka ayada marka waa xalaal midda ayada way banaan tahay lianna midana kale waa maxay wax lagu amaahimiyaa jir masxuun baa lagu tar wax lagu amaahiya adiga ma jiro guriga aad maadan iibsanin xaqi allaahid oo dawladdu kugu xurmaysay ee lagu daneeyay baad ka tanaasushay atanazu aan xuquuq baa la yiraahdaa xuquuq saayna waa lagu siiyay shariicadu u fiirso hadiyo goor waxay jeceshahay ruuxa asagoo baahan in wax la siiyo ribaduna asalkeedu waa maxay baahana in laga faa'iideysto yamhaqu Allahu riba wa yurbi as-sadaqat quraanku suu barbadhiga ma u jeedaan يمحق الله الربا ربا أصل كذا وامحي باهني أو فقير محتاجة إلا بانقذ يوي صدقنا محيط هاي وإن باهنا وحلصيه لأنه عكس الربا يا صدقة إسكسور جيدا صدقة وامحي لبانها يا باهنا وحلطره
oo aqniyadu fuqarada wax ku celiyaan ribana waa maxay waa in aqniyadu ay ka faa'iideystaan fuqarada baankeedayaan saasa ilaahay iskugu xidhay oo yiri yabxaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-ribana wa saaso kale way waxa lamida suurada hadda xuseen su'aashaada ma waxa ku dhiman صوتي هذا أنقل قرنك الدجمة intaasi hadda hawla aan gelin ba ku hoos jiro in adiga wax lagu siiyo lagu sahayo ayaguna ay dawladdu wixii ka iibsadaan culays ma laha hawsha khayaanada iyo been baa meesha ku jirta kaliya khayaani iyo been baa ku jirta dawladdu waxaad kaga dhigaysaa guriga aad iibsatay oo lacagta shubatay xaqiiqaduna waxa weeye bangi baa shubtay lacagta adigana ku sahaya meesha ka diray khiyaaradaas iyo beenta maray banaan yihiin oo hadda koor aan ka hadlay baa jira dalalka qaarkoodna ka banaan yihiin meelna isa ka banaan haddana ma sii galayo xeeladan hadda aad sheegtay waxa la mid ah tii aynu ku soo maray manhajka maxay ahayd بيع المرابحة للآمر بالشراء ولي صورك يحيى الكبين تا إسكا إلالي وحاد بنجيدو كل شقيستان إسماعي لغو آفي واقعي بلابتي إسلي كبلابتي بنجيد الله فوري أيان صومالي الله الله وحانا وحاران إسكا داي ويقد ديدين وذا دا أفتوضي وذا دي بإيقا راعيد وذا ديه با وادويد هاوش انتي لحماتي بوسو يكسور نقدين ماني هذا اللي جوجو اسبوع كهر با وداد اي يمديد هوشي فتودي ودادك كلان دور غري ku iibsaday hadana waa dhaweyd bay wadaadu muxaadar qabtan wixii waa xaraam bay dhaheen gurihii shanta haseen yeela halkan uu yimid saadka gudihiis maxay la tahay iska ilaaliya guri baad u baahan baabuur baad u baahan aduu aadan markaa iibsan karin bangi baad u tagi waxa leedahay guriga iyo baabuurka ama materialkaas u baahan iiso iib waa ka iibsanayaa bangigi baa soo gadi aduu kaasi iibin kadibna qiimuhu ku soo gaday qiimaha kayn buu ku saaray 100,000 buu ku soo gaday ama milyan 2 milyan bar 100 milyan bar ku saaray ama 20,000 ama 100,000 lacag dheeraad ku saaranaya iyadaas laga yareynaya xaqiiqada meesha talawaa maxay wadii waa banaanta warkada ayaan ka weyna xaraan cad weey meesha waxa yaala waa maxay markaad nuxurkeeda qabato waa wakaala bi ujra ma'a salaf waa wakaala bi ujra ma'a salaf bangigaas iyo kambaniga waxaad ku tiri guriga ii soo gad ama baabuurka ii soo gado waan ku wakiishay way hawshan aad qabato wabitaali waxaad igu dartaa guriga lacagtiisana iyo amaahi waa amaah lagu amaahiyay iyo wakiilasho aad wakiilatay bangiga maxaa yeelay beeca dhacahay waxa soo dhanba adoo ku dhacaya kambanigan iyo muassaduna wakiil aday ka tahay hantidii shayga lagu soo gadi lahaa ee gacanta saddexaad lagaga soo gadi lahaana wuu ka amaahiyay kadibna waa dayn lagu siiyay oo wadata ziyaada waa qard waa riba duyun cadwi sida darteed salafku mooto maalik baan ku maray ibn umar oo diidana waa xaraan waa riba leh subxu zakat waa ribo saciid musayyib baadi waa ribo saxaaba iyo taabiciin oo dhan baa ka hadlay imaam shaafici kaliya ayaa nas laga hayaa oranaya shardiga hadii laga badbaado waan ka gadanaya oo shardiga laazimka way banaan lahayd waa riba cad iska ilaaliya xaqaa'iqda uquuda la eegaaye suwarka khayaanada lagu wargeysto adaa amray adaa lagu soo gadaya waa wakiil bukaayah lacagta dul saartana waa ujradiisi soo asoo marka ka dhigahayo wuxuu ku amaahiyayna waa hantidii shayga lagu soo gadi lahaa marka waa wakaala bi ujra ma'a salaf marka maxay noqotay marka la qaado waa bay'a fi bay'atayn waa bay'i salaf waa shart fi bay'a soo ururi waa qard jarra manfa'atan fa riba oo cadwi laakiin wali aan wax badan fahansanin bantay ku wareeriyad يا وح عصب كاغا دغ مساله نازله ماها صوره عصب ماها
saxaabaa ka hadlay muwaطa maalik bay ku qoran tahay ibnu cumar bay ka sugan tahay cali baa laga soo guuriyaa fuqahaau taabiciin ninkii ugu yaqaanay buyuucda cuquudda saciid musayib baa ka hadlay waa xaaraan riba yidhi طاووس بن كيسان عطاء بن رواح قتادة الزهري ابن السيرين وأصور لغو تري أصلا من أعلم الناس بالبيوع من أهل البصر إنه يا كل دوار ربا محاسن الشيباني باللوتري وابان كمان الصغنو كتاب الحيل باللوتري كتاب الحيل لا ومزور على محمد الشيباني سنة الراجعة بسنة الصحيح طحاوي كوري إنه كتاب كواضع سوية هاي إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة أو الشغل كل هاي محمد حسن الشيباني شافعي shardigiisina lama hayo waa laga tagay wixii baa la dhoobay ummadda baa lagu aafeeyey riba cad baa la cunahayaa bismi albayc walmuraabaxa wallahu aclam marxaba aafadaasi waa lagu aafoobaya cuquudan socotay bunuugtu maanta ku dhaqmaan waa cuquud almudaayanaat sharcigeennuna wuxuu ku dhisan yahay cuquud almushaarakaat washarikaat waa ra'sumaaligi oo soo laabtay oo wejigii bedeshay shaarar kalena qaba marka raggiina dalaabtul cilmiga ayaa layna gaadin wallahu aclam